بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين درسي ودرسي لباد أي نكشر حيني لامية ابن الورد بيت كاللبية تمنات بين كب الله بينا وحوير ناظمك رحمه الله تعالى صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل صدق الشرع شرعك رماه ولا تركن هو إيلن وها عسكن هاي اعتماد إلى رجل إنها اعتماد يرصد أعمل قلي بالليل هبينكي زحل حدق زحل يراهدو دردارنكي وابن ورد ويلكي سلا دردار ما يبو سي وضاها وحو يري ويلكيجيو شرعك إسلامك شرعك الله سبحانه وتعالى الشرع iyo الدين iyo الملة iyo الشريعة واسكو mid shareecada islaamku ha ku deeqdo qaado oo gudoon maxaa shareecada ka soo horjeeda khuraafaadka iyo qusacbalaadka wala tarkan ha u ilanin ila rajulin ha u ilanin yarsudu u cimila galaya billayli habeenkii zuhal waa kuwan munajimiinta xidigaha iyo faalalowdeeda iyo saaxiriinta ah weeye kuwa iyaga ah oo adduunyada in badan ku ceeboobay oo intaasoo jeer yiri adduunyadu sanadka iyo sanadkaas xidigaas soo gaari doona balaayadaas dhici doonta wax dhacayna aysan jirin iyo wax la arkay toona kuwa iyaga ah inaba ha ku mashquulin waqtina ha isaga qaadin ee shareecada islaamka ha ku deeqdo oo rumee buu yiri zuhal waa xiddig ka mid ah xidigaha toddobada ah alqamar iyo az-zuhra ash-shamsu iyo cutaarid iyo almushtara almariikh iyo zuhal weeye marka xidigahaas ay fiirfiirinayaan zamankan aad bay u badan yihiin waagii hore xidiga fiirfiiris bay ahayde hadda waxa weeye telefisyoonada la samaystay waxaan la yiraahdo alfawaasiirta iyo kalendara la sameeyay xaaratil afkaartii way wareertay fi qudrati man أحد قدرتي بين كور ارتقد هدانا نجو هنوني سبلنا ودوين كنجي عز وجل الله غالب هذا الدوم دي سكاذك وجل وينادي ماشنا التفكير كأيو كهالله إيه إن لفكره إلهي خلقي يسلقوا فكره لكن مرك أي سوقادو أود إلهي أجو تفكير كادو حد بوليه مرك الدنبنا واد وريري وحونا قدمان inaad tiraahdo un subxaana alkhaaliq allihii waxaan abuuray ceebka nasahana maxaa yeelay allaha sac madow caana cad ka keenay allaha caanahan dhayda ee macaanka badan ee liska ah ka soo saaray min bayni farthin wa damin ka soo saaray bal adigu sidheh allaha laba ilmoodoo wada dhalatay ama laba gabdhoodoo wada dhalatay oo calool ka soo wada baxday midna madow ka dhigay midna cadeeyay midna gabar ka dhigay midna wiil ka dhigay allahaas marka awoodiisa waxaa ka mid ah inuu nagu hanuuniyey jidka xaqa ah toosan oo uu qofku doonana baadiyeeyo qofku doonana uu hanuuniyey maxaana la gudboon marka inaan niraahno alxamdulilaahi alladii hadaana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah فعلا من عجائب قدرة الله بكمته حارت الأفكار أفكارتي وي وريرتي في قدرة من أحد قدرتي بيكو وريرتي قد هدانا نوهنوني سبلنا ودوين كنجا عز وجل الله أدومدي زكاة ذاك وين كبدن سبلنا أو بعض الريبو وحوي وجمع سبيل وي ودد أصنا السبيل مرنا مؤنث يو مذكر لبضب وين نقطة لب يددك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وإنه لبسبيل مقيم مرنا مركا ددك بين نقطة مرنا لب بين نقطة بيت كافر يتبنى وحير كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين نمرود أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغن القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل كتب الموت
geeridii waa la dhigay kullu nafsin daa'iqatu lmowt kullu shayin haalikun ilaa wajhah shay walba wuu halaagsami ila allah ilaahay ma ogiye kutiba almowtu cala alkhalqi khalqigii baa dushiisa lagu dhigay oo naf walba geeri way dhadhamin fakam badanaa falla intuu mariyey min jamcin dad wadar ahoo meel wada taagan intuu nag ka dhigay badana wa afnaa intuu tagsiiyey min duwalin dowlado intuu tagsiiyeyna oo uu aakharo u dirayna fara badana ayna namruudu namruud aaway wa kancaanu kancaan mee waman aaway malakal arda dhulkan hantiyeyoo boqor ka noqday wawallaa dad jago u magacaabay wacazal dadkii jagada ka casilay dadkii ay ciidamada u rigaysnaayeen ee waxay dhahaanba la fulinayey ee markay ciidamadu gaardinayaan dhulka daryaanka iyo hugunka iyo waxa ka baxaya uu dhulkoo dhan isla gariirayay aawaya maanta god bay ku jiraan geeri baa qaadatay afnaahum mufni lumam aabbaha hadduu nool yahay bal awowgaa ka bilow ilaa nabiyullaahi aadam ku gaarsii dadkii xaggay aadeen waxaa weeye godkaas afka yar ee qabriga la yidhaahdo ayaa nin la yidhaahdo geeri bahal malakumowd la yidhaahdo yuu ku guray geeridu marka waa alxaqiiqa almura la yidhaahdaayo waa kharaar haddana lagama maarmaana waayo dadku haddaysan dhammaan lahayn adduunyadaba dadka ma qaadeen ayna namruudu namruud aaway wa kancaanu aaway waman aaway malakal arda dhulka hantiyey wawallaa wacazal qof maaragtay jago u magacaabayo ama jagadii ka qaaday ayna caadun reer caad aawaye ayna fircawnu fircoon aaway waman aaway rafaca alahraama ahraamta kor yeelay man qofkii yasmac maqla inay tageenoo baaba'eenna maqla yakhal qofka isaga waa lamala asiiba ayna man duul aaway saaduu sayidya noqday iyo boqorro washaaduu wax dhisay oo weliba dhismo adag dhisay wabanow dhismo caadi a dhisay dadkii dhulkan dhisay aawe dadkii dhulkan dhisay magaalada aad joogto bal daaraha ku yaalla intaad fiiriso muhandisiintii dhisay aawaye bal intaa ka fakar muhandisiintii dhisay daarahan dhaadheer eed hoos socoto aawaye dhulkay ka wada hooseeyaan maanta ayna man saaduu kuwii madaxda noqday aawe washaaduu guryahan dhaadheer kuwii dhulka ku dhajiyey aawey wabanow dhulka ku dul dhisay aawey halakal kullu dhammaantood way halaagsameen ay way geeriyoodeen weeye falam tuqni lqulal sarihii ay dhiseenna ma deeqin inay noolaadaan sabab uma noqonin waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhahdo marka ma dadkii madaxda ahaa iyo mujrimiintii iyo namruud iyo kancaan namruudku sida mashhuurka ah waxaa weeye alladii xaaja ibraahiima fii rabbihi weeye ee kancaankuna waa aabbihii namruud ibnu kancaan fircoonna waan soo sheegnay reer caadna waan sheegnay wahaakada waxaa laga yaaba marka qofku inuu isdhaho ma dadkii noocaas ee mujrimiintaha unbaa dhimanaya culummadu ma dhimanaysa miya ambiyadu ma dhimanayaan miya maya way dhimanayaan cidaan dhimanaynin male ayna arbaabulxija caqliga kuwii saaxiibka aawe ahlu nuhaa kuwii caqliga ehelkiisa aha aawaye ayna ahlulcilmi dadkii ahlu cilmiga aha aawaye walqowmu luwal jiilalkii hore aawaye haggay aadeen sayuciidu allaahu ilaahay wuu soo celin doonaa kullan mid la arko oo minhum iyaga ka mid ah wasayajzii wuuna abaalmarin faacilan mid ficil sameeyey maa shay buu ka abaalmarin qad facala uu sameeyey haddii markii la dhinto sidaasi ay arrintu ku dhammaan lahayd maxaa kaa dhici lahaa walow annaa idaa mutnaa turiknaa lakaana almowtu raaxata kulli xayin soo ma ahayn walaakin idaa mutnaa bucithnaa wayas'alu rabbunaa can kulli shay laakiin markaynu dhimanno ilaahay wuuna soo saari wax kastuuna na weydiin cilmigeennii iyo dhallinyaronimadeennii iyo xoolaheennan meeshaan ka keennay iyo meeshaan ku bixinnay su-aalaha lagu baaso 4 waxaa la isku weydiin amaama allahi tabaaraka wa tacaala 3 qabrigaa la isku weydiiyaa 7 su-aalood qofkii ku baasa ayaa baasaboorka ahlu jannaha gacanta midigtaa ku qabsanaya jacalani illaahu wa iyaakum min ahli aljanna sayuciidu allaahu ilaahay wuu soo celin kullan mid la arko oo minhum iyaga ka mida wasayajzii wuuna abaalmarin faacilan maa shay buu ka abaalmarin
قد فعل أوسمي قف والبوحي أوسمي أيا لغا أبال مرن إن شرا فشرا وإن خيرا فخير. halkan wuxuu ka bilaabayaa beydka labaatanaad marka dardaaran kale oo wiilkiisa ula dardaarmay wuxuu yiri ay bunayya isma' wasaaya jamacat xikaman khussat biha khayrul milal. ay bunayya ay waa munaada alqariib qofka loo dhawaaqayo ku dhow ay bunayya wiilkaygiyo waa tasghiir way. isma' maqal wasaaya dardaaranno jamacat kulansatay xikaman xikmado iyo halku dhagyo iyo murti وسي أمانه وحير خصت هدنا لغو غار يلي بها يدا خير الملل ديمها مدي أخير بدنيد ودين الإسلام أو وحان شابكي كلا سو بحية شوكتور ماها وحاوي الدين تان كسو دهدي وي دين تان كسو قاطي أو أنكو شيغي ياها إيغا مقل وي كل بلباتن جربات هايو إن بدن أو لغو شيغي قادن ميسيد لباتن جربات هاي cid la waaniyo 20 jir baa ugu qiimo badan maxaa yeelay waanadii buu ku intifaaci karaa laakiin inta badan ma qaataan laakiin waa in la waaniyo in badan lagu celceliyaa naseexadii marka uu dardaarankii buu u wadaa wuxuu yiri utlubil ilma ilmiga talab wala taksal hana wahsanin wahsigu waa ilmiga aafadiisa weey utlubil ilma ilmiga talab isaga ku imaan maaye aqoonta jari oo raadi wala taksal hana wahsanin على فما أبعد الخير خير كما حاوغا فغاشا بدن على أهل الكسل ددك وهسيك أو صاحبك ددك وهسيك بدن إيا خيرك كلفوغا ويا معنوه علمي مركا ونفتا كرا حيست روح ذا قوضته وإفتين وإيمانك ولالكي وهنونك إساقا اسكولرا وكهاقيا وإفتين أقول الآن وإفتين الآن وأقل إليس الآن وهجر النوم هرددا كهجرو وحصله علمك حصله فمن يعرف المطلوب وحا دون يقفك يقان يحقر وحو حقراه وآد هوس قدقا ما بذل وحا بحيي هرددو ودباتر دلن يرد هايستا ويلكي سيبو الله يوحو يري ويلكي يو دلن يردو هرددو دوي بدن تاي هرددا كهاجر او يره هرددو ونعمة من الله تبارك وتعالى لغمنا مارمي كرو لمنا لانتنا لمن نولان كرو لكن هداي كوغو يراتنا وادب هداي كوغو بدتنا وادب دحدحات بالا الربا مركا waxay yiraahdeen ahlum dadkan mutakhasisiinta 4 saac ilaa iyo 9 saac mid walba wuxuu meesha uu nashaadkiisa uu ku helay isaga garanaya ilaahayna dadka uma simin hurdada iyo hunguriga iyo shahwada iyo fahmada iyo nin walba ilaahay inbuu ka siiyay dadka uma sinna oo hadda miciyaar iyo qiyaas lagu qiyaasi kara mar nin walba iyo awoodiisa iyo taagtiisa ayay ku xirantay wahjurin nawma hurdada ka hijro oo ka tag waxasilu cilmiga soo xasili faman yacrif almatluba qofka waxa uu doonayo yaqaano yaxqir ma badal waxa uu bixiyay ayaa la liita $1 maanta hadaad gaari qiimo badan ku soo iibsato gaarigana gaari qiimaysan uu yahay $1,000 waxba kula ma aha laakiin $1,000 hadaad xabad xanjaa ku iibsato maxaad u malaynaysaa marka qofka waxa uu bixinayo waxa uu doonayo qiimihiisa garanaya wixii qiimo ahaaye uu bixiyay baa la yaraanaya bimacnaa waxa weeye soo jeedkaadii badnaa mar hadaad caalimnimada macnihiisa aad garanayso faqiihnimada macnaheeda aad garanayso muxadithnimada macnaheeda aad garanayso luqawinimada macnaheeda aad garanayso wax kastood ku bixisay waad xaqiraysaa way kula yaraanayaan marka waxtafil maamuus oo sharaf lilfiqi fiqiga sharaf fi diini diintana kasma iyo dhug loo yeesho walaa tashtaqil hana oga mashquulin canhu can ilfiqhi bimaalin xoolo aw khawal ama khadam iyo adeegto iyo shaqaale ha oga mashquulin halkanna adiibku waa faqiih fiqigiisii buu amaanayaa wuxuu yiri diintaada in aad kasmo iyo dhug iyo garasho u yeelato ku dadaal diintaada marti cid kale ha oga noqonin su'aashan farada badan ee la soo celcelinaya see loo tukadaa iyo see gaba islaanta la faray loo soo ceshadaa iyo waxaasi waa dad yacni naftooda ku xukumay inay cid kale diintooda marti oga noqdaane fiqiga maamuus diinta oo la kaso arinta iyada asharaf oo maamuus waxtafil maamuus lilfiqhi fiqiga fi diini diinta la kaso
ولا تشتغلها نوغا مشغول عنه يسجى حقيسا بمال حوله أو خول أما dad shaqaale ah ama shaqo yani waxa weeye xoolo iyo ganacsi ama shaqo aad u kala hayso shaqo aad aroortii u kala hayso adoo daalan aad ka imanayso ama ganacsi iyo xisaabaad iyo la xisaabtan shaqaale marna ha oga mashquulin cilmiga barashadiisa ee cilmigana baro beesadana raadi iyo ganacsiga raadi laakiin cilmiga mar walba qiimihiisa ogow cilmi baa la isku dhaafay waayahay laa taqulha oranin qad dhahabat arbaabuhu kullu man saara cala darbi wasal wuxuu yidhi shubha kale ayuu zuulinayaaho waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo ma haddaan cumar iyo cali iyo abubakar iyo cuthmaan iyo noqon karaa ma haddaan imaamu shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik iyo anas aan noqon karaa maarata axmed ibnu xambal oo kale aan noqon karaa waddan gaalaan jooga waxay baraya ma haysto wax igu saacidaya ma haysto luqadii carabiga ma aqaano kan waxaasoo dhan haysdhiin saxaabadu iyagoo waaweyn bay islaameen qaar baa hindiya ka yimid qaar baa ardul xabasha ka yimid qaar baa talyaaniga ka yimid luqada carabiga waa la wada bartay iyaga oo weliba waaweyn waa lagu shaqeeyey diintii baa lagu fahmay adigana wax kaa xiga ma leh laa taqul marka ha oranin qad dhahabat arbaabuhu cilmiga saaxiibadii way tageen waqtigii cilmi la baran jiray waa dhammaaday dadkiisina waa tageen ha dhihin kullu man qofkii saara qaada cala darbi jidka iyo dariiqa cilmiga loo qaado wasala waa gaaraa cilmiga ama wasala ilaa sacaadati dunya waalaakhira ayuu gaaraa dheh laa taqul qad dhahabat arbaabuhu kullu man qof alla qofkii saara qaada cala darbi wadada qaadaa wasala waa gaaraa qofkaan meel la gaarayna waa kuma waa midkan uba dhaqaaqinba ee iska hurdo un ama social media ku mashquulsan iyo dhalinyarada maanta waxa dhibaato haysata waad garanaysaan beydka 25aad wuxuu yiri fi ziyad ilmi cilmiga kororsigiisa irqaamul cida waa cadowga sanduleyntiisa sankiisoo la booreeyo way ama cadowba hadhiin hadaa doonto qofka kula tartamaya dawladda dariskaada dalkaada inay qaadato doonaysa qofka aad doonayso shirkadaadu inay shirkadiisa dhaafto في ازدياد العلم علمك كرسيgiisa إرغام العدا وعدوغ oo sankiisa la booreeyo maanta dagaalka adduunka waad garanaysaan waa cilmi iyo aqoon way nuclear buu maraya sawaariikh buu maraya ee dagaalkii foolka ahaaba waxa way maxaad ba ku gaariba badahadi baa la soo dagay madaafiic baa lagu soo hogaamin adigoo dhulka adoo gurigaad iska jooga ayaa meesha lagu dilayaa marka cilmi weeye waxaas cilmigii baad maanta aad cadow isaga celin kartaa way macnuhu wajamaalul ilmi arin kale oo muhiim uu sheegay wuxuu yiri wajamaalul ilmi ilmiga quruxdiisana islaahul amal wa amalka oo hagaaga oo cilmiga waa inuu alla ka cabsi ku gaarsiiyaa cilmigu waa inuu cadaalad ku gaarsiiyaa cilmigu waa inuu maamul wanaag ku gaarsiiyaa cilmigu waa inuu ku gaarsiiyaa horumar wajamaalul ilmi islaahul amal wa amalka oo hagaaga way جمل المنطق منطق هذا القرح بالنحو النحو ذا قرح فمن يحرم الإعراب إعراب قفك لجهوتي بالنطق حاجة هذا كان العدايو اختبل قفك استجواد دقوم وبدبال بالنقطة نندل يراها تهاي أنت عاديرتها علمي النحو ذا هي صرفك هي بلاغة ذا علوم اللغة العربية براء دين تأيا كوقف ضاني لقد عربية وبيك مدبعان وعلمي أساس كيسيوي تيبو كلا تلنيا ويلكيسا وحو يري جمل المنطقة منطقة هذا اي أراه هذا كقرح بالنحو النحو ذا علم النحو علم غير هذا علم الإعراب حركة كلمة آخر كذا وحل حركين أيو علمي كهاللوي فمن يحرم الإعراب عدين تقفكي لقهوتي هذا حقي اللقطة كلق بيسو هذا حقي اسبدل كلق بيسنا وهوس دقي يا كردقي يا ريبتانكي يا قدوقي وي إعرابك النوع عاصو كلا كلمة دي اللي كردقي كلمة دي اللي هوس دقي كلمة دي اللي ريبي كلمة دي مارتي اللي كردقي قفك آن كلا أقول بالنطق حق هذلك اختبل قفك إساقا واد دقموبا أو دقم بالنقضة هل كاسان كنتو تشينينا درسيقين اللبات انتان درسيقا صدحات ساقا إيمان دونو أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته